السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان تبع عصره كهالله محل دها عرنتي إن كبدا إن حرنايد مركز صفية بالأنصار عربنا. وكنا رصيد كويسي وكاسة. Yep, so I can leave now. Okay. Yep. Thank you, sir. And God bless you. Tomorrow you said 2 o'clock, right? Tuesday. Tomorrow. No, tomorrow's Sunday. Uh-huh. Tuesday. Right, so it's Sunday, Monday, Tuesday. Wow. 3 days. Okay. Thank you very much. Yes, sir. Okay, you gave me a receipt. Yes. Yeah, I can have this. Yep. Okay, did I forget anything? Yeah, you gave me also this, right? Oh, this is mine. What is that? This is mine. Okay. Yeah. Okay. Okay, thank you. Did you give me any? I mean, the piece of paper? Yeah, this one is mine. You gave me Okay, this? Yeah, right. you gave me this. What is this? This is for my organization. Oh, okay. I apologize. Yeah. There's so many pieces of paper. Taxi, IRS, and this is my Ohio, the masjid, the mosque. Okay. Has nothing to do. But the room number is 501, right? Yes. Yeah, okay. Okay, thank you. Thank you. I hope you are happy, and we are thanking you. Hopefully you have all your money, and whatever comes, we will also share with you. Okay. Thank you. Thank you, sir. Did I forget anything? Make sure. If you did, I'll bring it to you on Tuesday. Okay. Thank you. Thank you. I think this is good. Yeah. Okay, And thank you, sir. then I will put your address. I will put your address here. Okay. Okay. Waa kana ninkii walaalayaal lawyerkii. And alxamdulillahi rabbil caalamiin. And waan siinay walaalayaal alxamdulillahi rabbil caalamiin. Ilaahay ikhlaas nagu arsaaqo. Waxaan ka codsanayaa lacagtan waxaan joogaa wax fiiskii. lacagtan anaa baxshay. lacagan dad ka soo aruuriyo oo talan ba safiyo lacagteedii keenay waa waray anirana ma aha. walaalihii lacagta u gurayay safiyo lacagta u gurayay oo haya si ayadii caruurteed lacagtii aad aruuriseen ama 9,000 midii ku dhaweyd ama midii ku dhaweyd 18,000 iyo dheeraadka oo haya safiyo iyo caruurteed. lacagtaa safiya iska leh yaa safiya miya yaa lacagtaa safiya iska leh haddana safiya khadka ku jirta lacagtaas aad aruuriseen safiya iyo caruurteeda iska leh oo haya lacagtaas soddonka ku dhow waxa iska leh safiyo iyo caruurteeda iska leh haddana safiyo khadka ay ku jirtaa. walaala safiya assalaamu calaykum. walaalay waa ku salaanay facebooka live baan ku jirnaa. Soomaaliya oo dhan ayaa ku ducaynaysa ilaahay ku baryaysa. waxaana ka codsanayaa qof kasta oo Soomaaliyeed meel kasta oo dunida iyo caalamka uu ka joogo inuu soo kaalmeeyo safiyo GoFundMegeeda ugu soo shuba xawaalada magaceeda ugu soo dira zawjkeeda ugu soo dira Badri Farhadi Badri Muhammad waa kana ugu soo dira Dubbad magaalada Anchorage gobolka Alaska 2,700 oo hadda taalay oo lacagtaas uu sheegtay ninku waan bixiyay. ilaahay ha naga aqbalo lacagtaasna aniga bixiyay dabcasar LCC baa bixiyay. wixii lacag lagu aruuriyayna waxaan ka codsanayaa intaas iyo laba jibaarkeedba in gabadha loo aruuriyo oo aad garab istaagtaan oo u hilisaan gabadhiina hooyada Soomaaliyeed xabsiga ku jirta. walaalay Soomaaliya oo dhan baa ku ducayna safiyoy. dere Soomaali waa inta ducaynaya ilaahay adinka fiimin hayna shaqtiyo
maxaa tiri safiyo kuma maqlayna maxaa tiri walaalay walaalay Soomaali waa u ducaynaynaa dadkii lacagta ku aruuriyayna ajar iyo xasanaad Allah siiyo dadkaas lacagtay ay ku aruuriyeen waxaan ka codsanayaa safiyo iyo caruurteeda oo haya amaanadaas anigu hal qof oo lacag aan ka qaaday safiyo walaal ma jiro midaan waa mid anigu aan bixiyay oo kambariyayga dabcasar LCC u bixiyay qof lacag ii soo diray oo lacag aan ka qaaday ama aan ka aruuriyay ma jiro dadka waxaan ku lahaa bixiya lacagta ku soo aadiya safiyo zawjkeeda oo ila taagan hadeertaan Badri Muhammad Dubad iyo safiyo soo baxaysa safiyo magacaaga sheeg walaalay qofkii xawaalada kugu soo diray safiyo Umar telefonkaaguna waa 907 هاي 8691 كعلي 907 سجال إبر تضبط 744 تضبط أفر 8691 qofkii xawaalada magaalada Anchorage Soomaa gobolka Alaska magacaaguna waa Safiyo Umar qofkii lacag u soo dirayna walaalow halka ugu soo dir qofkii GoFundMe-gana ay dhalinyaradu iyo gabadheedu u sameeyeen u soo dir Khadir Cabdiraxmaan iyo qofkii ku darayna u dir qofkii u haya lacagow ayada u ahay zawjkeedana waa kana Badri Muhammad Dubad al-Jigjigaawi hadii ilaahay ku idmahayo ilaahay carruurtaada ku xifdiyo adigana ha ku xifdiyo annagana ilaahay ikhlaas iyo daacadnimo ha nagu arsaaqo marka Soomaali weyn reer waxaan u mahadnaqayaa dadka magaalada degan Anchorage jaaliyadatan oo u hiilisay safiyo oo garab istaagtay safiyo oo lacag u aruuriyay oo damaano qaaday oo carruurteed u hayay shaydaanku dadka waa dhaxgali karaa walaalay safiyo adiguna gabdhihii Soomaaliyeed oo ku hiiliyay oo walaalaha ahaa sida hoodan iyo nimcayo umahadnaq iyo jaaliyadaadii yaa lagu dirin garbaha isqabsada iskaalmaysta gabdhahaas wanaag badan bay ku galeen jaaliyadu wanaag badan bay ku gashay war xumow lagu waa war xumo tashiilow lagu waa walaalay dadka oo dhan u ducee gabdhahaasna si gooniya ugu ducee ilaahay Soomaaliya oo dhan dhibaatada ka dulqaado inta qurbaha joogta carruurta Allah u toosiyo kuwa u toosan yihiin ilaahay hoos ilaaliyo waxa weeyaan anigu cidna wax uma haysto waxaan inta maalin walba la dhahayo gabdhaha isku dhacdeen anigu jecel in maalin walba lagu soo celiyo maalin walaalay safiya waxa weeye khalad waa dhacaa أحسان بيكوجلن وليها هالمامين قفكي أحسان كوجله يعني لو قدرين ويكوتشعلين إلى هذا يهجن كويهين صفيه يدعيه أحسان كيكون سميين يعني لو قدرين ولا لا وي خذن برفض
ولا شيء خير الله يسعدك جزاك الله خير أخياري وان كحوما هاي wuxuu joogay public ma joogin views ma joogin friends kaliya joogay marka waxa daawanaya dadka friends kaliya aha khayr baan idin rajaynayaa laakiin public inaan ka dhigay ahayd kama dhigin public waa ka xumaay kumanaan kun baa halkaan soo gal lahayd laakiin khayr baan idin rajaynayaa insha Allah ta'ala ilaahay xabsiga ka saaro barafkaan aan joogno ilaahay dartiis ilaahu nagu arzaaq ikhlaas iyo daacadnimo isu kaalmeeya isu hiliya dumarkoow walaalaatihiin elbaatihiin إسعافية صومالي ولا سكود درامير والبا يعني سكود كندرين إلهي سبحانه وتعالى كعب صدا الشيطان كسك النار سكها المية أبيالد مش أنا مود صفية ولا شيء وديجي ودعانكي وقويسكي وضدكي دلائي كد ماي ولا ليال وصيه لي دلائي كد ماي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شوقنا حفيزك بريان أن وكاسا والله يركي والعقتي وشكتي لبكون يصدوا بقول أنفرتك ساري waxaana bixiyay miskiinka Allah iyo kambarigiisa dabcasar LCC dadkii lacagta u aru aan qof lacag ma qaadin qof lacag aan ka qaaday ma jiro safiya dadkii lacagta u aruyo oo haya iyadii caruurteeda iyo waxay u baahato mustaqbalka insha Allah wasalaamu alaykum wa rahmatullahi